ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذي xafladda furitaanka tartanka qur'aanka kariimka ee xaaji maxamed aw siciid mulkiilaha shirkadda som cable ayaa saaka lagu qabtay masjid rusheeye ee magaalada hargeysa waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay madaxa xidhiidhka dadweynaha shirkadda som cable sheekh cabdirasaaq xasan rakuub tartankan waa markii labaad ama sanadkii labaad ee aanu si joogto ah u qabanno ujeeddada aanu tartankan aanu ka leenahay waxa weeye inaanu dhiiri gelinno kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiirigelinta aanu dhiiri gelinayno kitaabka alleh oo aanu tusayno dadkaa sida kitaabka ilaahay inay annaga nagu weyn yihiin shirkadda ku weyn yihiin cid kastoo muslimiin ahna ay ku weyn yihiin intaasi kadib waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii iyo culimadii ka soo qayb galay waxaa ogtihiin shirkaddu inay kaalin weyn kaga jirto bulshada ay u shaqayso ama ay ka shaqaysato waxay ka mid tahay sharikaadka wax ku soo celiya ee runtii ku ammaanan arrintaasi waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala xaajiga hantidiisa ha barakeeyo cimrigiisana allaha barakeeyo camalkiisana allaha wanaajiyo waa mahadsantiin si gaara sheekh cabdirasaaq oo aan odhan karo runtii waa nin dareen leh oo inta badan waxa weeyaan ku suntan in uu ummadda runtii xidhiidh fiican u sameeyo wixii uu qaban karana uu u qabto maadaama shirkaddii uu mas-uul ka yahay xajigeenna qiimaha leh ee xaaji maxamed ow siciid iyo shirkadihiisa iyo howlwadeennadiisa runtii inoo soo qabanqaabiyey barnaamijkan qiimaha leh lagu karaamaynayo ee lagu maamuusayo dhallinyaradeenna ilaahay kitaabkiisa xambaaray ee baranaya ee ku dhex jira iyadoo lagu dhiiri gelinayo sidii ay qur'aanka iyo ilaahay kalaamkiisa ay u xifdin lahaayeen kelmadda ducada ahna waxaan ugu ducaynayaa shirkadda soo iyo mulkiilaheeda xaaji maxamed aw siciid iyo howlwadeennadeeda dhammaantood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro anoo wasiiro aan kula taliyey kal hore iyo runtii culimmadeenna tartanka ku caankaasa sheekh maxamed aadan oo isagoo lahaa fikraddaas inaynu shirkadda u dayno magaalada hargeysa oo noqonaysa dee thuluth ama idhaahdo 3 dalool bulshada reer somaliland ku nooshahay inay hesho caasimaddu muxuu ahaa dhiirigelin khaasa oo u dhigma tiradeeda u dhigma ayay ku habbooneed tiiba fikraddu ay ahayd oo nala qaatay shirkadduna ilaahay khayr ha siiyo waataa maanta aynu doorkii labaad ama maaragtay wareeggii labaad ee sanad guuradii labaad inaynu samayno kiilaha shirkadda MSG maxamed aw siciid runtii waanu u ducaynaynaa in ilaahay maalkiisa iyo runtii magaciisa iyo runtii ilaahay u barakeeyo marka jazaaka allahu baanu leenahay maxamed aw siciid runtii maxamed inta badan waxa uu ku suntan yahay amaba uu ka qayb qaata waxyaabaha khayriga